waxaa maanta magaalada Hargeysa laga daafuray macradka weyn ee cusub ee gaadiidka ugu tayada badan dunida ee Hyundai Dahabshiil Motors waxaana si toos ah u daafuray madaxweynaha Somaliland. daafurkii macradkan cusub ee Hyundai Dahabshiil ee madaxweynaha Somaliland u daafuray ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sarreysa Dahabshiil Group, xubno ka tirsan golaha wasiirada, madaxda axsaabta qaranka, golayaasha qaranka, madax dhaqameedyo, sidoo kale marti sharaf aad u tiro badan. ugu horreyn madashaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha Dahabshiil Motors Cawil Shariif. waxa ka jira dalka baabuur aad u badan oo buux dhaafsan. su'aashu waxay noqonaysaa maxay soo kordhinaysaa baabuurtan kale ee lagu soo kordhinayo? waxay kaga duwan tahay tayo amni ama badbaadada uu fidinayo qofka isticmaalaya, badbaadada uu fidinayo cidda la isticmaalaysa dariiqa, badbaadada uu fidinayo deegaanka ama environmentka. ergeyga Somaliland u qaabilsan wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya Marwa Adna Aadan ayaa ugu hambaliyay Dahabshiil adeegan cusub ay soo kordhiyeen. shirkadan weyn Dahabshiil Group ay Somaliland inoo keeneen maanta waxay ka mid tahay horumarka badan Dahabshiil Group ay Somaliland u keeneen. waxaa sidoo kale isaguna halkaas ka hadlay gudoomiyaha guud ee Dahabshiil Group Xaaji Maxamed Siciid Ducaale. baabuurta duuga ee sanadaha badan socotay ee lagu soo tuuray dalkeenna waxaan filayaa inay tartiib bedeli doonto ay tahay, qiimadoodana waa la dhimayaa. shirkaddan Somaliland waanu ka furnay dhulka Soomaalidu degto na way ku socotaa. shirkadda markii aan hawsheeda ku jirnay waxay aqbashay markay warkii heshay inay tahay meel nabadgelya. madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo daahfurkaasi soo gabagabeeyay ayaa halkaas ka hadlay. waxaynu hambaliyo u diraynaa Dahabshiil Group oo dalka wax badan ka taray. waxaanu u ducaynaynaa Dahabshiil Group oo maanta halkan isugu yeedhay inuu hawl ganacsi oo weyn oo dalka wax taraysa oo kala furayna waa u ducaynaynaa, waanu hambaliyeynaa. Dahabshiil Company iyo groupkiisa iyo Dala Airline waynu ognahay halkay nagala soo dabaasheen maalmihii adkaa ee dalka eber laga bilaabay iloobi maayo qofkii joogay dhalinyarooy Dahabshiil iyo Dalo. intaas kadibna madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale mas'uuliyiintii kala duwan ee ka soo qayb gashay madasha daahfurka Hyundai Dahabshiil Motors ay xafladiisa soo qabaqabiyay ururka Inspire Group ayaa waxa ay soo kormeereen warshada iyo qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay macradka Dahabshiil Motors. waana markii ugu horeysay la keenay Somaliland mid ka mid ah shirkadaha gaadiidka ugu casrisan dunida ee ugu tayada iyo raaxada badan ee loo yaqaan Hyundai. Cabdulqaadir Coday, Home Cable TV, Hargeysa.